waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii xalay ka dhacday xeebta Liida. xalay abaaro markay saacad ahayd 4 saac iyo 1 daqiiqo waxa shakhsi ka tirsan qawaariijta uu si toos ah u weeraray dhalinyaro ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed intooda ku dalxiisaysa xeebta Liido oo xilliga maadaama ay jimco ahayd u joogay inay waqti ku qaataan dhalinyaradaas iyo maamooyin ku ganacsanayay oo waxyaabaha yaryar ku iibiya xeebta Liido ayuu si toos ah asagoo isku soo xiray walxaa qarxa dhaxda oga galay wuxuuna ku bartilmaameedsaday dhalinyaradii maamooyinkii buskudkii waxyaabaha yarka goobta ku iibinayay dadka ganacsatada ahaa iyo dhammaan indheer garadkii iyo dhalinyaradii aqoon-yahanadii bulshada Soomaaliyeed maalinka jimcaha ah xeebta Liido si degan ugu damaashaadayay targetkiisna wuxuu ahaa baabi'inta bulshada Soomaaliyeed intoodii indheer garadka ah sidoo kale koox ka tirsan qawaariijta ayaa ayaguna markii qaraxaas uu dhacay oo maatidaas goobta lagu xasuuqay waxay soo aadeen si foolka foola u soo aadeen intii ka badbaaday goobtaas iyo intii hoteelka ku jirtay inay ku laayaan bulshada waxayna soo galeen hoteelka Beach View waxaana u soo gurmaday ciidanka ammaanka qaybahooda kala duwan oo ka hortagay fal ay damacsanaayeen kooxdaasi gudaha hoteelka soo gashay oo ahayd intii ka soo badbaada xeebta hoose ee uu isku qarxiyay qawaarijka intii ka soo badbaado gudaha soo aad inay baabi'iyaan balse geesiyaasha ciidanka ammaanka ayaa u baayac dhigay waxayna goobta ku toogteen saddexdii qawaarij ee gudaha hoteelka gashay goobtaas kaliya 2 askari ayaa ku dhaawacantay oo mid ka mid ah dhaawaca uu shahiiday laakiin waxay guul ka gaareen inay soo afjaraan kooxdii qawaarijta ahayd ee gashay gudaha hoteelka sidoo kale waxay wadeen gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyay oo qawaarij waday balse ciidanku ay fashiliyeen markii ay ciidanku fashiliyeenna la qabtay qawaarijkii asagoo dhaawac ah oo nolosha lagu qabtay iyo gaarigii oo qarax ku xirnaa oo ay ka badbaadiyeen bulshada geesiyaasha ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada ammaanka caasimadda arrintaanu waxay fariin cad u tahay bulshada Soomaaliyeed oo aan leeyahay wax inoo haray ma jiro